بسم الله الرحمن الرحيم كلا wanaagsan daawadayaan barnaamijkan gebi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa waxa si xoogaysanaysa xiisada colaadeed ee ka dhex aloosan Sacuudiga iyo Xuutiyiinta dhinaca kale gudaha waddanka Yemen ayaa dagaalo culus ay ka soconayaan waxaana dagaaladu ay dhex marayaan xogaga Xuutiyiinta iyo ciidamada dawladda caalamka aqoonsan yahay iyo maleeshiyad qabaa'il oo taageeraya Xuutiga ayaa waxa ay weerar culus ku qaadeen goobo kala duwan oo ku yaala waddanka Yemen oo ay ka mid yihiin xiriir military iyo dekedda magaalada Al-Makha waxaana ay sheegeen in halkaasi Sacuudiga ciidamo iyo agab military uu keenayo sida Xuutiyiintu ay sheegayaan dhinaca kale gobollo ku yaala waddanka Sacuudiga ayaa la duqeeyay oo Xuutiga waxay ku weerareen diyuuradaha droniska shirkadda Aramco dhowr xarumood ay leedahay ayaa la weeraray dhinaca kale waxaa soo baxaya warar laga helay dhanka sirdoonka reer galbeedka oo sheegaya in agab military iyo saraakiil Iiraan ay u dirtay waddanka Yemen si ay u taageeraan xogaga Xuutiyiinta arrinkaasi waa ay beeninayaan haddaba Xuutigu ma ka madax bannaan yahay Iiraan mise way ku daaban yihiin oo Iiraan ay u shaqaynayaan waxaana welwel weyn laga qabaa in Xuutiyiintu gebi ahaanba ay xiraan marinka Hormuz dhawaan raalli ahaada marinka Bab al-Mandab dhawaan wasiirka arrimaha warfaafinta ee dawladda Yemen ayaa sheegay in Xuutiyiintu ay ku tala jiraan inay xiraan marinka Bab al-Mandab haddaba warbixin arrintan la xiriirta iyo xogta Xuutigu inay ka madax bannaan yihiin Iiraan iyo in kale iyo sida dagaalka loogu qaaday oo aan laga guuleysan iyo xaaladdan waxay ku dhammaan karto ayaynu idiin soo gudbinaynaa warbixin laga qoray Maxamed Maxamuud Cadde ayaa soo akhriyay warbixin arrintan ay ka qortay jariirada New York Times Maxamed warbixintu maxay ku bilaabanaysaa ama ciwaan looga dhigay Xuutiyiinta caalamka waa in ay u tixgeliyaan in ay madax bannaan yihiin oo ayna daba dhilif u ahayn Iiraan ayaa cinwaan laga dhigay maqaalkan waxaa qoray Alexander Stark oo cilmi baare xagga siyaasadda ka tirsan iskaashiga Rand wuxuuna ku baaqayaa in la yareystay Xuutiyiinta waddanka Yemen maqaalkan oo lagu daabacay wargeyska New York Times ayaa uu ku sheegay qoraagaasi in muddo dhowr sanadooda Xuutiyiinta loo tixgelinayay in ay Iiraan jaal leeyihiin taasoo dhalisay in siyaasado la qaato loo tixgelinayo inay Iiraan xulafo leeyihiin marka laga gudbo xaqiiqada ah in ay Iiraan ka faa'iideen inay hub ka helaan tababar iyo khibrad Xuutiyiinta ayaga u helaan danahooda gaarka ah siday rabaan ayayna u dhaqmaan oo waa ka madax bannaan yihiin Iiraan haddaba sidaas haddii ay tahay marka maxaa loo yiraahdaa Xuutigu Iiraan bay la shaqeeyaan oo Iiraan bay wakiil u yihiin Xuutiyiinta oo maamula inta badan waqooyiga Yemen hadda waxay awood u leeyihiin in ay saameyn wejiga labaad ah ku yeeshaan dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan haddii ay Xuutiyiintu isku dayaan ama haddii uu Mareykanku isku dayo in uu dagaalka ballaariyo Xuutiyiintu waxa ay soo cusboonaysiinayaan go'doomintii ay ku hayeen hadda ka horna ay go'doomiyeen marinka la yiraahdo Bab al-Mandab Xuutiyiinta ayaa laga yaabaa inay dib dagaal uga bilaabaan Yemen gudihiisa isla markaasna inay majaxaabiyaan dadaalada heshiis lala gaari karo waddanka Iiraan waxaana la xusayaa in Mareykanka laga yaabo in colaadiisa ay gobolka ku sii ballaaratay haddii xaaladdaasi dhacdo Stark ayaa waxa uu sheegayaa qiyaasihii hore loo haystay oo ah in Mareykanka iyo Israa'iil weerarka ay Iiraan ku qaadeen bishii February waxaa loo tixgelinaya Xuutiyiintu inay ahaayeen dad si toosa ugu xiran waddanka Iiraan arrintaasi ayaa hadda aad hoos ugu dhacday Hezbollah oo ah xulufada waddanka Iiraan ayaa duqeynta Iiraan sida uu hadalku u dhigayo aad loogu wiiqay ururka Xamaas sidoo kale Israa'iil ayaa wiiqday Iiraan waxa ay lumisay xulufo weyn
oo waddanka suuriya ay ku lahayd markii madaxweyne bashaar al asad xukuumaddiisa xilka laga tuuray. xuutiyiinta ayaa iyadana waxaa 2024 2025 si weyn awooddooda u wiiqay duqeyntii Maraykanka. sababtaas ayaynan oga qayb qaadan ayaa la aaminsanaa dagaalka markii Maraykanka iyo Israa'iil ay weerarka ku bilaabeen sanadkan bartamihiisii waddanka Iiraan si ay uga baaqsato weeraro kale. laakiin macluumaadkaasi si sax looma akhrin. waa gartay arrinka la xiriira inaysan ka labalabeynin dagaalka inay ku biiri karaan, laakiin dagaalku muddo dheer buu socday. haddii ay ahaan lahay sanadkii hore bishii Juun dagaalka 12 maalmood socday iyo kii dambe oo February lagu qaaday Iiraan oo Maraykanka iyo Israa'iil ay qaadeen, marka maxay uga qayb qaadan waayeen dagaalkaasi Xuutigu? istaag oo maqalkan qore ayaa waxa uu sheegayaa xuutiyiintu waxay u muuqdaan inay sugayaan waqtiga munaasabka ah, sababtoo ah deegaanka Yamaniyiinta ay joogaan ayaa juqraafi ahaan mid aad muhiim u ah. xuutiyiintana waxa ay carqaladeyn karaan maraakiibta mara baabulmandab, meesha laga soo galo ee badda cas. inta u dhaxaysa 12 ilaa 15% maraakiibta qaada ganacsiga iyo shidaalka ayaa mara halkaasi. dhinaca kale badda cas waxay ku xiran tahay marinka Hormuus oo ah marin aad muhiim uga ah saliidda iyo gaaska u socda waqooyiga Maraykanka iyo Yurub suuqyadeeda. iyadoo Iiraan si buuxda ay marinka Hormuus u xirtay, xuutiyiintana waxa ay leeyihiin mowqif aad u culus. hadday doonaan marinka baabulmandab waa xiri karaan, ayuu khabiirkani qabaa. waa gartay arrintaas marka hadaynu kusii soconno, sidee Xuutiga marka u adeegsan karaan baabulmandab si ay saameyn ugu yeeshaan ganacsiga caalamka? xuutiyiinta ayaa saameyn caalamiga leh wixii laga soo bilaabo markii ay la wareegeen magaalada Sanca sanadkii 2014, waxayna meesha ka eriyeen xukuumaddii caalamka aqoonsanaa horaantii 2015. xoogag badan oo ka tirsan xuutiyiinta ayaa dagaalka sii waday, ayagoo isku dayay inay dhulka oo dhan qabsadaan ee koonfurta Yemen. Sacuudiga xulafo uu horseed ka yahay oo uu Maraykanku taageerayo ayaa dagaalka soo galay, sida khabiirkani uu qabo. dagaalkaasi ayaa ku koobnaa oo keliya inuu ahaa dagaal maxalli ah, hase haatee wuxuu isu bedelay dagaal goboleed. masiibo ba'an oo bini'aadanimo ayaa waddanka Yemen ka dhacday. ugu dambeyntiina waxa ay ku dhammaatay warbardhac. cadaadis xoog leh oo caalami ah ayaa xuutiyiinta wax looga qaadi waayay. dhinacyadu waxa ay noqotay inay aqbalaan xabad joojin ay qaramadii midoobay dhexdhexaadisay bishii Abriil sanadkii 2022. wixii markaasi ka dambeeyey, xuutiyiintu waxay noqdeen awood buuxda oo ka jirta waqooyiga Yemen, halka ay aad u daciifeen oo hoos u dhaceen xukuumaddii dowladda Sacuudiga ay taageersanayd ee koonfurta iyo galbeedka Yemen haysata. sida qoraagani uu qabo, xuutiyiintu waxa ay muujiyeen awooddooda ayagoo weeraray maraakiibtii badaha caalamiga marayay ee badda cas markii dagaalka Gaza uu bilowday 2023. waxa ayna isticmaalayaan hub aad raqiis u ah, drones isqarxiya, gantaallo guuxooda ka dheereeya iyo doomo dheereeyo isqarxiya, waxaana ay khatar geliyeen marinka Hormuus oo dhan. waxaa kordhay maraakiibta saameynta ay ku yeelatay hawshaasi. ugu dambeyntiina wayba xirmatay. maraakiibtii ayaa lagu qasbay in ay ka soo wareegaan waddanka Koonfur Afrika, waxayna ku kordhisay safarkooda 4,000 oo nactal mile. waxaa sidoo kale kordhay kharashka maraakiibta lagu koreysto iyo caamiska. waa gartay. waa hagaag. dhinaca kale markaynu ku eegno markaa, ma dhici kartaa in isku mar la carqaladeeyo ama ay xirmaan marinka Hormuus
baabalmadab iyo kanaal suways. bishii lasoo dhaafay ayaa xuutiyiintu waxay dib u bilaabeen inay weerar ku qaadaan maraakiibta maraysa badda cas, waxayna bartilmaameedsanayaan maraakiibta shidaalka qaada ee lagu xiranaya waddanka Sacuudi Arabiya, waxayna waxyeello weyn u geysteen kaabayaashii Sacuudiga ee xagga shidaalka iyo gaadiidkii qaadayay. weeraradaasi waxay jawaab u ahaayeen sida ay xuutiyiintu sheegayaan markii Sacuudi Arabiya ay weerartay garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca Juulaay 13 iyadoo isku dayeysay inay hor istaagto diyaarad ka soo socotay waddanka Iiraan oo ku soo degi lahayd Sanca. ilaa iyo hadda maraakiibtii ganacsiga weli badda cas way ka gudbayaan, inkastoo maraakiibtii shidaalka qaadaya ee tiradooda aada hoos ugu dhacday bishii lasoo dhaafay. xuutiyiintu waxay weeraraan maraakiibta lagu xiriirinayo waddanka Sacuudi Arabiya, welina duqeyn ayay ku wadaan iyo weerar, halka August 12 ay weerareen markab kuwa xamuulka qaada markii ugu horreysay, waxyeelana iyo dhimashana ay ka dhacday weerarkaasi. maalmihii ugu dambeeyey xuutiyiintu waxa ay ku andacoodeen sida warbixinta lagu xusay inay mas-uulka ahaayeen weerar lagu qaaday markab marayay ama ku sugnaa dekedda Mukha ee waddanka Yemen, oo ay gacanta ku hayso xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee waddanka Yemen, iyo garoon diyaaradeed iyo kaabayaal saliidda warshad lagu sifeeya ee Sacuudiga ku yaalay. Stark ayaa waxa uu sheegayaa marinka Hormuz si buuxda ayuu u xirmay. waxaa iyadana muhiim ah badda cas oo ku xiran kanaal Suwaysna in hadda ay khatari kusoo food leedahay. Sacuudi Arabiya ayaa hadda waxay rabtaa inay ka baaqsato inay isticmaasho badda marinka Hormuz, saliideedana in dhowaalaba waxay ka raraysay tubooyin ku xiriirsan badda cas ee dekedda Yumbu ee galbeedka ee waddanka xeebaha ku yaala. weeraradii ay xuutiyiintu dhowaan ku qaadeen Sacuudi Arabiya ayaa khiyaarkaasi carqaladaysay, waxaana qarka uu u saaran yahay marinka Hormuz xirnaashihiisa inuu hadda kusoo biiro kanaal Suways oo ganacsiga dhibaato weyn caalamka ganacsigiisina dhibaato weyn ay la kulmaan, shidaalkaas caartiisana kor u kacdo, sicir barar ba'ana oo caalamka dhan aafeeyo sida khabiirkani uu hadal ku dhigayo. waa gartay. waaya marka hadda xaaladda taagan ma laga yaaba inay noqoto xaalad la mid ah 2023 ilaa 2025 markii xuutigu ay weerarayeen maraakiibtii gooshi jirtay marinka baabalmadab iyo badda cas? xuutiyiinta ayaa hadda waxa ay ku sugan yihiin baa leeyahay mowqif ay la kuleeyihiin gobol awalba colaadba aanay ka jirtin, waxaana laga yaabaa dadaaladooda in dadaalada lagu soo afjarayo colaadda in ay carqaladayaan. waraagan ayaa waxa uu beenaynayaa xuutiyiinta tallaabooyinka ay qaadayaan in ay tahay mid ay Iiraan ku riixayso, wuxuuna leeyahay xaqiiqdu waxa weeye arrintaasi in ay ka fog tahay waxa la aaminsan yahay. xuutiyiinta waxaa lagu yaqaanaa inay ka go-an tahay inay danahooda ka shaqaystaan, tallaabooyinka ay rabaanna ay qaadaan marka ay timaado masraxa caalamiga. hore ayay u caddeeyeen inay karti u leeyihiin in ay waqti munaasaba la raadsanayaan oo ay dagaalka soo galaan, colaadan ay dardargeliyaan. tusaale ahaan markii ay weerarayeen maraakiibta badda cas intii u dhexaysay 2023 2025 xuutiyiintu waxay sheegi jireen waxay ku tali jiraan oo keliya inay badda u diidaan maraakiibta Mareykanka iyo Israa'iil si hoos loogu dhigo markaasi Gaza dagaalkii lagu waday sidii hoos loogu dhigi lahaa. weeraradaasi ayaa xoojiyey xuutiyiinta warka ay sheegeen inaan la sahlan karin marka ay timaado waqooyiga Yemen oo ay gacanta ku hayaan. tan kale dareenkii ayay waxay ka leexisay guuldaradii
u soo hoyan lahayd wadamada gacanka qaar, maadaama sida hadalka loo dhigayo xoojiyiintu aynan ahayn kuwa yaman inteeda kale laga jecel yahay, laakiin shacabkooda aad ayay u taageersan yihiin oo mudaaharadyo waaweyn ayay qabtaan sida khabiirkan hadalka u dhigayo. waayahay dhinaca kale maxamed, anagoo gabagabadii ku sii dhow, maxay yihiin marka waxyaalaha ka dambeeya in xoutiyiintu ay doortaan inay dagaal ku biiraan ama ay xaaladda cirka geeyaan? xoutiyiintu waxaa cad inay raadinayaan fursad ay saameyntooda iyo wadaxaajoodka ay sacuudiga la gelayaan inay gacantooda xoojiyaan si xal siyaasadeed looga gaaro dagaalka yaman, islamarkaasna ay fursad u helaan in ay qaadaan weerar ka dhana xukuumadda uu caalamku taageerayo. weeraradii hore ee xoutiyiinta intii u dhaceysay 2023-2025 ayaa saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka. marka laga gudbo in ay awood u leeyihiin inay xakameeyaan badda cas iyo badaha ku hareereysan, waxaa la qiyaasayaa carqaladaynta ay maraakiibta caalamku ku sameeyeen markaasi inay saameyn weyn ganacsiga ku yeelaan. laakiin markan dhaqaalaha si weyn ayay u saameynaysaa haddii ay marinka hormuus xiraan, iyadoo uu xiran yahay marinkii baabulamandab inay xiraan iyadoo marinka hormuus xiran yahay. waxyeeladu aad ayay u weynaanaysaa xagga dhaqaalaha, iyadoo dowladda Maraykanku ay raadinayso inay soo afjarto dagaal ka dhanka ah waddanka Iiraan. xoutiyiinta ayaa ku hanjabaya inay dagaalka Yaman dib u bilaabayaan, taana waxa ay saameyn ku yeelanaysaa Sacuudi Arabia, waxa ayna khatar gelinaysaa shidaalkii caalamka iyo xasiloonidii gobolka bariga dhexe. waa gartay. waaya gabagabadii marka muxuu qoraagu kusoo gabagabeeyey waxa loo aqoonsan karo ama loogu yeeri karo xuutiga? Stark ayaa waxa uu leeyahay ama aaminsan yahay inay aad u dhib badan tahay in dagaalkan gobolka bariga dhexe hoos loo dhigo iyadoo aan si weyn wax looga qaban khatarta xoutiyiinta ka imaanaysa, halka la iska qiyaas lahaa in wadaxaajood lala galo waddanka Iiraan lagu soo afjari karo arrinta xoutiyiinta, oo inta badan la aaminsan yahay inay xoutiyiinta Iiraan ay xulafo yihiin. isla mar ahaantaasi cid iska qiyaasi karta ma jirto heshiis Iiraan lala gaaro inuu xakameyn karo xoutiyiinta. beesha caalamka waxaa waajiba inay u tixgeliyaan xoutiyiinta inay yihiin dad go-aankooda gaar u lah, khatarna ah, samayn karana go-aano ay ayagu leeyihiin oo danahooda ka shaqaysanaya. hawshaasna wax badan ayaa laga gaabiyey laguna fashilmay. waa gartay maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashanu way mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan. daawada si aad ula socoto wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha allah. inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.